Assalamu alaikum. Maanta waxaan idin soo gudbinayaa film Faransiis action iyo comedian isugu jira oo la yiraahdo Full Speed. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa Tom. Xaaskiisa waxay u leedahay uurkii saddexaad. Magaceeduna waa Julia. Waxa kale qoyska u joogta laba caruur ah. Leeson ayaa ah gabadhooda curadka. Wiilka yarna waxa la dhahaa Niyo. Familkan waxa ay qorsheynayaan inay aadaan baadiyaha si ay u soo hababadashtaan. Iyagoo si faraxsan u dabaaldegaya qof ayaa albaabka soo garaacaya. Markii ay ka furto albaabka waxa uu noqonayaa Tom aabihiisa oo la yiraahdo Ben. Isaga waxa uu isku soo daraya oo uu ku soo biiraya safarka. Tom isaga ma diidna in aabihii uu safarka u raaco, balse xaaskiisa Julia kuma faraxsano arinka oo waxa ay ku oranaysaa aabahaaga waa oday weyn oo da ah. Waxa uu burburinayaa wax waliba. Waana qof dhib badan. Si kastaba ha ahaatee lamaanaha waalidkooda safarka uma diidi karaan oo caruurta ayaaba jecel oo ku faraxsan in awowgood uu safarka u raaco. Ugu dambeyn dhamaantooda waxay aruursanayaan boorsooyinkooda. Waxay isku diyaarinayaan fuulitaanka gaariga uu Tom soo iibsaday. Waxaana la yiraahdaa Medusa. Dhamaantoodana waxay la dhacsanaayeen oo ay ku faraxsanaayeen gaariga quruxdiisa. Ka hor inta aysan dhaqaaqin, kii yara ayaa soo xasuustay in bombalihiisa uu guriga ku soo iloobay. Aabihii Tom ayaa u balan qaaday inuu mid kale jidka uga iibin doono, balse awowgii Ben ayaa ku adkaystay inay guriga u laabtaan maadaama isaga xitaa uu doonayo inuu soo xaajo guto. Isaga iyo Tom ayaa guriga u soo laabtay. Odaygii markii uu nusqusha ku soo xaajo gutay waxa uu si lama filaan ah baybarkii ugu riday suuliga. Kadibna mara ayuu ku aruuriyay si uu u qariyo arinka, balse suuliga ayaa bilaabay inuu dhawaaqo. Isaguna waa uu iska soo baxay suuligii oo dhawaaqaysa. Tom ayaa qori falaar ah uga nixiyay aabihii kadib markii uu soo baxay. Ka hor intii aysan gaariga ku soo laaban ayaga, Tom waxa soo wacday mid kamid ah bukaanadiisa. Waxa la yiraahdaa Cecilia. Waxay u sheegtay inay barar ka qaaday dawadii uu siiyay ayada. Isagana waxa uu ku yiri arinta wax dhiba ma lahan ee ha u bixin. Waxa ayna degdeg ugu soo laabteen gaarigii. Kadib waxa ay bilowdeen safarkoodii. Hal saac oo safar ah kadib, caruurtii waa ay gaajoodeen. Waxay galeen kaalin shidaal oo ku yaala supermarket si ay cunto halka uga sii qaataan. Intii ay gudaha ku jireen familku, awowgii Ben waxa ay banaanka isku barteen gabar la yiraahdo Melody. Waxa ayna leedahay timo buluug ah. Kadib waxay u sheegtay inay ka soo hartay hooyadeed oo wadatay gaari yar. Waxayna ka dalbatay inuu ka gaarsiiyo ayada. Ben ayaa ku yiri aniga ayaa ku caawinaya, balse maadaama uu ogaa in Julia ay diidayso in kale ay gaariga la raacdo, waxa uu ayada u sheegay in kursiga hoostii ay isku qariso aysan marnaba soo bixin. Isna isagoo iska dhigaya mid masaxaya gaariga, waxa uu jibinayaa kristaalaha gaariga. Meesha ayuuna saarayaa si aan loo dareemin isaga. Safarkoodii ayayna sii wadanayaan. Kadib odaygii Ben ayaa bilaabaya in magacyo qaab daran uu u soo jeediyo in Tom uu u bixiyo cunugiisa cusub. Julia ayuu mar kale ka careysiinayaa. Tom waxa uu isku dayayaa inuu dhexdhexaadiyo labadooda, balse odayga marnaba ma joojinayo eedeynta iyo ka careysiinta Julia. Sida ay u doodayaan ayaa hal mar waxa shaqada joojinaya kontaroolka bareega gaariga. Tom ayaana qabanaya bareega, balse uma shaqeynayo. Wuu ka qarinayaa ayaga oo waxa uu isdhahayaa xabaaraha wax yar un ka dhin, balse geerkii ayaa xitaa u shaqeyn waayaya oo wuu ku guul dareysanayaa inuu xawaaraha dhimo. Markii uu dhowr jeer si naxdin leh gaari badan uga dhaxboodo, Julia ayaa weydiinaysa waxa qaldan. Isna waxa uu u sheegayaa dhibka jira. Julia waxa ay moodaysaa inuu iska kaftamayo, halka aabihiina uu siinayo talooyin aan wax ku ool lahayn. Ugu dambeyn familkoo dhan waxa ay xaqiiqsanayaan in dhibaato ay dhaxda uga jiraan. Tii Melody ahaydna intay marada iska qaado ay madaxa soo baxsanaysaa. Waxayna odaygii weydiinaysaa dhibka jira. Caruurtii ayaana aragtay Melody. Waxayna u sheegayaan hooyadooda. Melody ayaa soo baxday waxayna bilowday inay isbarto ayaga. Waxay u sharaxaysaa magaceeda. Waxayna u sheegaysaa halka ay ka timid. Dhamaantooda way u qaadan waayeen. Tomna waxa uu ku sigtay inuu shil galo. Intaa kadib si caruurta argagaxa looga ilaaliyo, Julia ayaa hees u qaadaysa, balse qaylidoodii ayaaba shil gelin gaadhay. Wax yar kadib Tom waxa uu xasuustay ninkii gaariga ka iibiyay nambarkiisa. Julia ayuuna ku yiri ii wac. Kadib waxa taleefanka ka qabtay ninkii oo famil kale ka iibinaya isla gaarigii oo kale. Markii uu Tom cabashadiisa maqlayna waxa uu si fudud ugu yiri haddii gaariga xawaarihiisa uu dheeraaday aayar bareega qabo, wacitaanka badanna iga yaray. Waxa uuna dhigay taleefankii. Wax yar kadib Melody waxay aragtay gaarigii yara ee hooyadeeda oo sii dhaafaya. Hooyadeeda ayayna u qaylisay, balse hooyadeeda waxba ma maqlin. Melody ayaa la soo baxday qorigii Tom. Waxa ayna ku aadisay isaga. Waxay u maleynaysay in qoyskani ay afduubanayaan, aysanna bareega ka xumaan ayaga. Waxayna toogatay Tom, balse kursigii ayaa ka celiyay warankii. Kadib Ben ayaa inta uu ku xanaaqay waxa uu ku dhuftay sanka waxa uuna ka qaaday qorigii. Ugu dambeyn Melody waa ay fahantay in qoyskani
aysan kaftamayn oo ay dhib ku dhex jiraan. Tom ayaa wax yar lumiyay kontaroolka gaariga, waxa uuna albaabka ka jibiyay gaari kale. gaariga kale waxaa iska lahaa nin dabeecad xun oo Jackie lagu magacaabo. wuuna soo dabagalay gaarigii Tom, waxa uuna go'aansaday inuusan ka daba harin ilaa uu ka soo argoosto uuna ka qaato magtiisa, maadaama uu ka cararay isaga. kadib Tom gaarigiisii waxaa arkay laba askari oo taraafika ah, waxayna arkeen in xawaaro sharci darro ah uu ku wado gaariga. mid ka mid ah ayaana ka soo dabagalay iyagii, halka askarigii kale uu soo dabagalay Jackie oo xawaaro sare isna ku waday gaariga, waxa uuna cayrsanayay Tom. Ben iyo Julia ayaa kuraasada kala bedeshay si uu Ben u caabiyo Tom. odaygii Ben oo isku dayaya inuu hagaajiyo bareega ayaa waxaa soo gaaraya ninkii taraafikada ahaa, waxa uuna la yaabay gaarigan xawaaraha sare ku socda. Tom waxa uu sheegayaa in bareega gaariga uu ka halaabay, balse ninkii taraafikada ahaa waxa uu oranayaa in badan ayaa lagu mamarsiyooday in gaariga uu ka halaabay bareega ee jooji gaariga. Julia ayaa si ay askariga wax u fahansiiso waxa ay waraaq ugu qoraysaa SOS. markii ay isku dayday in waraaqda ay ka tusiso daaqada, waxaa ka duulaysa waraaqadii, waxayna wajiga ka daboolaysaa ninkii taraafikada ahaa. isna intii uu aad u xanaaqay ayuu waraaqdii iska sii tuuray. haddana waxay miraayada ka qabsatay Jackigii aadka u xanaaqa badnaa, isna isagoo xanaaqsan ayuu gaarigii istaajiyay. isla kolkaa waxaa soo gaaray ninkii labaad ee taraafikada ahaa, waxa uuna ku amrayaa inuu saldhiga u raaco, balse uma joojin ee waa uu ka fakaday mar kale. dhanka kale talisada ciidanka taraafikada waxaa la ogeysiiyey in Tom uu dhib ku sugan yahay, balse ayadana waxa ay tiri ninka waa beentii oo wax bareega kama halaabin ee ii soo qabta. ugu dambeyn waxay u soo dhawaadeen bar control oo ay gawaaridu ku badan tahay. Tomna waxa uu gaarigii ku dardaray calaamadaha wadada si uu shilka uga badbaado. ugu dambeyn taliyadii taraafikada waa ay ogaatay in dadka gaarigan saaran aysan kaftamayn, waxayna amar ku bixisay in la baaro gaariga xogtiisa iyo qofka iska lehba. dhanka kale Jackie isagoo Tom ceersanaya ayaa waxa uu ka soo gudbayaa jagboontiyadii, isaga kaliya waxa uu cad in Tom uu ka qaado lacag uu ku samaysto gaarigiisan uu ka burburiyay. kani wixiisa dabeecad daro wayba dhaafeen. dhanka kale Tom muraayadii ayaa ka wasaqowday, karistaalihii markii uu shiday waa uu ka dhacay maadaama uu odaygii horay u jibiyay karistaalaha. kadib odaygii ayaa gaariga kor ugu baxay, waxa uuna si dhib leh ku nadiifiyay muraayadii. isla waqtigaas Tom waxaa soo wacay ninkii gaariga u waday bukaanadiisii Cecilia, waxa uuna ku yiri gabadha afka iyo faruurihii waa ay barareen, ee waa maxay waxa aasiisay dhima isna lama uusan hadlin ee waa uu ku jaray taleefankii. Tom waa uu daalay maadaama uu 2 saac si xiriir ah xawaaro sare ugu waday gaarigii. aabihii ayaa kala wareegay waditaanka gaariga, halka ayuuna ka sii waday. dhanka kale ninkii gawaarida qaraabka ah iibin jiray waxa uu reerkii ku qanciyay in gaarigiisa ay iibsadaan. dhammaantooda markii uu gaarigii saaray ayuu Tom soo wacay, waa uuna ku qayliyay isagoo ku oranaya waxaad iga iibisay gaari qaraab ah. intii ay doodayeen waxaa gaarigii cusbaa ku xirmay qoyskii kale. ka fur markii uu isiirina gacantii baa jabtay. reerkii huurka gaariga awgii matag ayay ka bixi waayeen. baabuur iibiyihii ayaa arintaa aad uga sii carooday maadaama ay ku matageen baabuurkiisan cusub. dhanka kale baaritaan kadib booliisku waxay ogaadeen in gaarigan dhowr jeer xawaaro sare lagu soo xiray isagoo magaalada ku dhex socda oo uu weliba watay odayga qalqaalka ah ee Ben. kadib waxa ay sarkaaladii tiri reerkan waxani caado ay ka dhigteen ee soo qabta ee wax bareeg ah oo ka halaabay ma jiraane. markaasuu ninkii booliiska ahaa xabad ku qabtay Tom. kadib si ay u cadeeyaan inay dhab ka tahay, Julia ayaa albaabka furtay, waxa ayna tustay uurkeedii weynaa. taraafikadii markii ay wareereen waxay amar ku bixiyeen in dhammaan baabuurta laga baneeyo highwayga ay ku soo wajahan yihiin. 2 askari ayaana ka hormaray si ay wadada ugu sii baneeyaan. xoogaa yar kadib odaygii Ben ahaa waxa uu sheegay inay xaajo heeso uuna doonayo meel uu ku xaajo guto. Tom ayaana bac u hoos dhigay. markii uu bacdii buuxiyay ee uu xaajo gutayna waxa ay bacdii ka tuureen daaqada, waxayna si toos ah wajiga uga dhacday Jackigii dabeecadda xumaa. Jackie ur ayuu la dhiman gaadhay, kadib ciil dartii ayuu baaldi madaxa gashtay si aan mar dambe kaadi iyo saxaro wajiga looga shubin. dhanka kale Tom waxa uu isku dayay in aabihii uu bareega la cadaadiyo, balse markii ay xoogaa lugta ku hayeen ayuu bareegii soo jabay. Tom oo habaaraya ninkii gaariga ka iibiyay ayaa bareegii daaqada ka tuuray, balse waxa uu si kadiisa madaxa kaga dhacay askarigii taraafikada ahaa ee daba ordayay. askarigiina shil ayuu galay, balse isaga waa uu ka badbaaday ee waxaa burburay mootadiisii. isla markiiba waxa uu gaariga ka kaxaystay Ceciliadii bukaanka ahayd iyo saygeedii si uu qoyska u soo badbaadiyo. dhanka kale Jackie ayaa soo gaaray familkii, waxa uuna Tom ugu hanjabay inuu ka qaadi doono magta gaarigiisa iyo lacag kale oo baad ah, balse kii yara oo gadaal fadhiyay ayaa ku tooganaya qoriga uu waranka ka dhacayay. ugu dambeyn si toos ah Jackie shil ayuu galayaa. markii dambe waxaa warbaahinada laga sii daynaya oo laga sheegayaa in haddii gaariga uu nus saac sii socdo uu gaari doono wadooyin saxmad ah, waxaana laga yaabaa inuu shil galo. kadib booliiska
booliskii ayaa isku dayaya in gaariga ay cadaadis ku istaajiyaan balse uma suurtagelayso. ugu dambeyn waxa ay dalbanayaan in caruurta yaryar daaqada looga soo dhiibo si ay ugu horeen caruurta u badbaadiyaan. nasiib wanaag waxaa lagu guuleystay in caruurtii la saaro gaarigii booliiska, balse Melody oo lahayd tinta baluuga markii ay isdhaheen wareejiya waxaa qalqalay odaygii been ahaa, waxa uuna kala fogeeyay labadii gaari, waxa ayna ku sigatay inay ka dhacdo gaariga, balse ugu dambeyn iyana waa ay badbaaday oo waxa ay ku wareegtay gaarigii booliiska. ugu dambeyn waxaa gaarigii ku soo haray saddexdoodii. meesha wadada saxmada ka ahaydna waxay u jirtaa 5 daqiiqo oo kaliya. markii ay rajo beeleen ayaa waxay arkeen helikabtarkii ciidanka ee dul hoobanaysa, waxa ayna ku guuleysteen in Juliadii uurka lahayd ugu horeen la badbaadiyo, waana la qaaday iyadoo ninkeedii sii macsalaamaysay. waxayna u sheegtay inay jeceshahay isaga maadaama uu dhowr daqiiqo gudahooda shil ku gali doono. odayga iyo wiilkiisii oo shil isku diyaariyay ayaa mar un waxaa gaarigoodii dalacay helikabtarkii, balse nasiib daro gaarigii qaraabka ahaa ayaa saqafkii sare u faqay, dhulka ayuu kula soo dhacay, wayse ka badbaadeen oo waxba ma aysan noqon. wax yar kadib waxaa foolatay Julia, isla helikabtarkii ayaana hosbitaalka loola cararay, waxayna dhashay ilmahoodii saddexaad. ugu dambeyn faamilkii oo faraxsan waxa ay ku laabteen gurigooda. filimkuna halkaa ayuu ku dhammaaday. ugu dambeyn like sar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. mahadsanid.